Magaalooyinka Dhuuso-Mareeb iyo Gurceel waxaa ka socda qorista ciidamo cusub oo ka tirsan daraawiishta Galmudug. Tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran oo uu hormuud ka yahay Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Qoristan oo diiradda lagu saarayo dhalinyarada deegaanka ayaa loo arkaa isku day uu madaxweynuhu ku rabo inuu ku yeesho cudud ciidan oo si toos ah isaga ugu xiran, isagoo u muuqda mid ku xuub siibanaya garabka iyo saamaynta Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ilaa ku dhow madaxtooyada Galmudug ayaa xaqiijiyay in ciidamada federaalka ee deegaanka jooga ay amar ka qaataan Villa Soomaaliya si uu u helo awood uu kula gorgortamo dowladda dhexe iyo maamulada kaleba. Waxa uu go'aansaday inuu dhiso ciidan isaga u gaar ah oo aan cid kale la xukumin, taas oo muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid xiriirkii dhowaa ee kala dhexeeyay madaxtooyada qaranka. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in qorshahani uu salka ku hayo in madaxweynuhu uu ragga beesha ceer ka dhigo gaashaanka uu dabka iska rijiyo, maadaama beesha ceer ay tahay xuduudda ugu xooggan ee deegaanka. Qoorqoor wuxuu u arkaa inay yihiin kuwa keliya ee u dammaanad qaadi kara jiritaankiisa siyaasadeed iyo difaaca kursigiisa marka uu khilaaf ka dhex qarxo isaga iyo Xasan Sheekh. Tallaabadan ayaa Galmudug u horseedaysa inay yeelato go'aan madax bannaan, balse waxay wadataa khatar weyn oo dhinaca amniga iyo bulshada ah. Ugu dambeyntii, waxaa jira cabsi laga qabo in qoristan ay dhalinyarada beesha ceer u horseeddo qatalaad iyo dhiig ku baxa difaaca maamul uu ninka saaran yahay xilka hayo ku dhowaad 7 sano, iyadoo aan la arkin wax muuqda oo uu u qabtay adeegyada bulshada iyo horumarinta deegaanka. Marka laga eego fashilka hogaamineed ee muddadaas dheer, dad badan ayaa u arka in Qoorqoor uu rabo inuu dhalinyarada beesha u huro damaciisa siyaasadeed ee xilligan, isagoo dhidibada u aasaya awood ku dhisnaan doonta dhiigga beesha uu markaan shaarka ka dhiganayo si uu iskaga celiyo culayska ka imaanaya Villa Soomaaliya.